ujeedada shirkani waxa weeye in aynu diyaarino sida la sheegay qaab ay wasaaradii hay'adaha dawladdu ay ku wadaagi karaan xogta ay hayaan sida hore loo sheegay waxaynu nolosheena oo dhan imika noqotay mid ku fadhida technology qofku markuu tooso ilaa intuu seexanayo wuxuu had iyo jeer gacanta ku haya waa wax technology la xiriira dad qaarkood subax markay toostaan iyagoo wax kala qaban xataa salaada aan tukan waxa laga yaabaa inuu eegaba xalay maxaa soo kordhay habeenkii markuu sii seexanayo inuu sii eegaya update-kii u dambeeyay soo galay macnaheedu waxa weeye nolosha oo dhan baa noqotay based on technology marka dawlad ahaan inaynu taa la jaan qaadno u baahannahay xogteenu soo wax noqotaa xog qofka gaar u leeyahay sida national ID oo kale waxay noqon kartaa xog la xiriidha transaction mucaamaladu sameeyay waxay noqon kartaa xog la xiriidha hanti qofku leeyahay waxay noqon kartaa xogtaas iyada laftigeedu adeeg uu dawladda u soo doontay waxay noqon kartaa inuu xogtaas noqoto xog qofku u baahan yahay waxaan ka hadlaynaa platform ama qaab dhammaan xogaha kala duwan ay hay'adaha qaranka hayaan ay ku wadaagi karaan inaan diyaarino wasaarad ahaan shirkan waa shirkii koowaad saddex dhinac min ka gali doonaa dhinaca sharciga oo maaragtay sharci ahaan oo xeerarkii xirnaamayaal iyo siyaasad iyo halbeeg iyo wixii kale soo raaca iyo hagayaal iyo tilmaamayaalba waynu ka hadli doonaa marka dhinaca koowaad waa dhinaca sharciga dhinaca labaadna waa dhinaca maamulka iyo adeegsiga oo hay'ad waliba xogta haysa ma xog kale u baahan tahay arrimaha gudaha xogta ugu badan haysa laakiin hay'adaha kale waxa uga baahan yihiin iyaguna xog kale oo sida waxa kamid ah liisanka gawaarida oo kale iyo laftigooda u baahan yihiin marka sidee xogta loo baahan yahay la kala qaadanayo loo maamulo iyaguna waa dhinaca operationalka dhinaca saddexaadna waa dhinaca technicalka weey oo farsamo ahaan xogtii waxa ku jirta qalab waxa ku jirta system iyo software maamulaya marka in saddexda dhinac aynu ka galnay mar walba noqonaysaa sababteed baan isugu yeedhnay wasaaradii hay'adaha iyo anaga wasaaradii maamuleysay iyo shirkadii gacanta ku hayay ujeedada markaa shirku waxa weeye inaynu bal diyaarino qaabkii xogta loo kala qaadan lahaa xogta laftigoodu kulay qaybaha government-ku bay ka noqonaysaa saddex nooc bay noqonaysaa xog ay kala qaadanayaan hay'adaha dawladdu iyo xog ay hay'adaha dawladda iyo ganacsatada ama ganacsigu uu maaragtay kala qaadanayo iyo xog loogu talagalay dadka maaragtay muwaadiniinta caadiga ah talaan qofku markuu yimaado wasaarad ama hay'ad waa inuu ogaan karo maxay isaga looga baahan yahay oo talaan haduu liisan ganacsi samaysanayo intaana xafiiska ba iman waa inuu maaragtay uu og yahay shuruudaha xog weey waxa kale oo qofka loo maaragtay ogolaan karaa inuu qayb ka mid ah shuruudaha uu soo buuxiyo oo isagoo soo qabtay processkii qayb ka mid ah u yimaado xafiiskii kadibna loo dhameystiro halka imika muddo dheer ay ku qaadan sidii noo sheegay agaasimuhu inay maaragtay ay waqti badan kaga lunto waxa kale oo suurtagal ah in qofku ogaan karo shirkad heblaayo liisanka ganacsiga ay haysataa ma yahay mid shaqeynaya mise waa mid dhacay marka qaybahaas oo dhaxaynu uga baahanayno siyaabo kala duwan aynu u diyaarino xogaha noocaas ah marka waa hawl culus waa hawl u baahan in la diyaariyo waxa lagu tilmaamaa xogtu waa sida dhiigu uu jidhka qiimo ugu leeyahay hadaan dhiigu aanu jidhka wada gaadhin oo wadnaha aanu maaragtay dhiiga aanu wada gaarsiinayn xubnaha kala duwan ee jidhka nolosha qofku dee halis bay gelaysaa dawlad ahaan ama si guudba nolosha dhan xog bay ku dhisantahay maalin walba wax lagu qaataa xafiisyada dawladda ku banaan go'aamadaasina waxa ku fadhiyaan waa xog weey xogtuna waxay taal xafiisyada dawladda taal sidee markaa
xogtii loo baahnaa loo heli karaa xilligii loo baahnaa loo heli karaa qaabkii loogu baahnaa loo heli karaa sida ugu fiican loo adeegsan karaa isla markaana loogu gudbin karaa qaab faa'iido ay ku leedahay maanta adoo go'aan qaatay hadii berrito la xog aad hesho dee waxa weeye waqtigii dib uga dhacay haddii go'aankaad qaadanayso xogtaad haysaa aanay xog sax aan ahayn oo xog ay wax ka dhiman yihiin ama wax dheeraad ku yihiin ama qaabka aad u fahmaysaa wax ka khaldan yihiin dee go'aamada la qaadanayo wax badan baa ka khaldan marka ka wasaarad ahaan annagu waxaan diyaarinaynay system u dhigma kaa wadnahoo kale oo dhammaan u suurtagelinaya in laamaha dowladda xafiis dowladdu gudahoogana ay isku weydaarsadaan xogta isla markaana ay la wadaagi karaan qaybo kale waxa intaa dheer waxa jira shirkado private oo hay'adaha dowladda qaarkood sistemyadooda imika ay socoto in lagu xidho waxa u baahan tahay laftigooda taa wax laga diyaariyo waxa soo galaysa ilaalintii xogta information security oo meesha imanaya si ay markaa u wadaagi karno xogta laamaha dowladdu waa inay yeeshaan qaabab midaysan oo xogta kaydkooda in ilaalintoodii ama meesha lagu keydinayaa iyo qaabka u marayso marka shirkan waa shirkii koowaad waynu wadi doonaa maanta waxaan ugu talagalnay in daneeyaasha xog dowladda laamihii dowladda ee ugu weynaa 7 ka dooranay qaar kalena way nagu soo biiri doonaan oo ay ka mid tahay hay'adda maamul wanaagga iyo laftigeedu qayb ka mid ah xogta maamul wanaagga waxa ka mid ah in xogtu ay noqoto mid la halbeeg lagu soo hagaagi karo marka waynu sii wadi doonaa shirku noo socon doonaan faa'iidooyin badan bay leedahay waxa ugu ka mid ah maamul gaarsiinta gobolada dalka oo dhan oo maaragtay xogta taal maanta la sacaanood dawaanay xogta saylac taal xafiiska ku yaalaan ay leedahay dawladdu ku taala saylac iyo xafiis ku yaala cirgaabiye kala sacaanood ku yaala inta u dhaxaysaaba inay si fudud xogta u kala heli karaan iyadoo waliba cid waliba xogta u baahan tahay kaliya la siinayo markii la xogta la wadaago ma had qof wuxuu doono inuu de uu helayo laakiin waxa weeye muxuu u leeyahay awood muxuu leeyahay sharci inuu heli karo yaa heli karo xogtan wax heli kara cidii haysata awoodda noocaas marka diyaarinteedu waxa ka mid tahay inaan diyaarino qaabka Instagram waxa kale iyaduna marka kamid ah faa'iidooyinkeeda aan diyaarinayno laamaha dawladda iyo xafiisyada dawladda mar walba waxa lagu xantaa in markasta uu yimaado isbedel oo ku dhaco in xogtii hore ama waxa weeye wixii hore la hayay in dib loo soo bilaabo ma laga guuro salahan de national ID waaba la nasgareysay laakiin waxa jira qaybo kale oo fara badan oo u baahan in la diyaariyo in markaan diyaarino waxa la yiraahdaa knowledge based governance maamulka iyo xukunka la xiriira xukunka la xiriira knowledge kala sheegaya waxa weeye ma aha aqoontan sheegin waxa way xog diyaarsan oo ma aragtay qofku mar walba noqon karo oo laga diyaarin karo expert systems ama nidaamyo leh khibrad lagu noqon karo go'aamada la qaadanayo meel loogu hagaagi karo marka dogolay qayb kamid ah la sharaxay mar raba inaan farsamahan aan aad hoos ugu galo maxaa loo baahan yahay soo dhacaysa maxaa la marayaa waa maxay shuruudaha lagu kala qaadanayaa hadhow xataa hadduu dhaco khalad sidee la isugu kuwaas waa arrimaha aynu socono laakiin si guud maanta waxaan diyaarinaynaa qaab ama platform laamaha dawladda kala duwan ay isku weydaarsan karaan xog iyadoo hay'ad waliba xogtay haysay ka mas'uula iyadoo ay tahay cidda lagu la xisaabtamayo ay tahay cidda mar walba xogta loogu hagaagayo tanagu daarna waxa weeye sidee xogta loo kala qaadan karayaa weey kale marka waa shirkii koowaad
waynu wadi doonaa gudiyo farsamo iman doona inuu saari doono sida la sheegayna sharci ahaan waxna waa ka diyaar wixii kale uu ku dari doono haddii la yiraahdo marka aad baad u mahadsantihiin inaad ka soo qayb gashaan waan idinku soo dhaweynayaa